إنا لله وإنا إليه راجعون. الله نحريسته waxaa maanta qabuuraha bari ee cirjiifa ee magaalada Gaalkacyo lagu aasay Suldaan Cabdulle Suldaan Warsame Awdoon oo xalay ku geeriyooday magaalada Gaalkacyo kana mid ahaa ismida ugu daada weyn Puntland. Suldaanka oo waayahan xanuunsanaya ayaa geeriyooday isagoo ku jira sanadii 100aad waxaana taariikhda suldaanka saxaafadda uga waramay Cabdiwaaxid Suldaan Cabdulle Warsame oo ah wiilka uu dhalay suldaanka geeriyooday. Cabdulle Warsame Awdoon Allah u naxariisto wuxuu ku dhashay 1911 magaalada Gaalkacyo duleedkeeda Burcad iyo Buurmadow meesha la yiraahdo laba dhexdooda rumo ku yaalo casa kabacdi wuxuu noqday gacanyaraha Warsame Awdoon oo ahaa hogaamiye dhaqameed gobolka Mudug iyo Soomaaliya aad looga yaqaanay wixii 20 jirkiisii ka weynaa wuxuu ahaa leegadii wuxuu galay 43 asaasayaashii Gaalkacyo kabacdi wuxuu arag aad ugu adkaa gobanaba u dirirka oo aad mutidka u ahaa in Soomaali xornimo gaarto kabacdi 1947 Talyaanigu dadkii u dhibsaday ku kamid ahaa waa la xiray 3 sano ayuu xiray 1950 ayaa la suldaanku waxa uu la soo shaqeeyay intii uu noolaa dawladihii kala duwanaa ee soo maray dalkeena Soomaaliya. Suldaan Cabdulle Warsame Awdoon Allah u naxariistee waxa uu ka tirsanaa xubnihii ururka dhalinyarada ee u dagaalamay xorriyadda dalkeena Soomaaliya ay maanta haysato wuxuuna ku biiray sanadka markuu ahaa 1943 oo xilligii la aasaasay ururka SYL. waxa uu muddo 3 sano ku jiray xabsi ku yaala dalka Talyaaniga waxaana uu xorriyadiisa dib u helay sanadka markuu ahaa 1950 xilligaas oo dawladii gumaysigii Talyaaniga u xirtay gobonimo dirirka dalka Soomaaliya. geerida suldaanka ayaa noqotay mid wada taabatay shacabka iyo madax dhaqameedka gobolka Mudug iyo guud ahaanba Puntland waxaana ka tacsiyay mas'uuliyiinta dhaqanka culimada diinka haweenka dhalinyarada iyo maamulka gobolka Mudug. waxaynu markaanti ka nahay inuu ahaa adoon dhowrsoon ummadda cadaalad ugu shaqeeya ehelkiisa ummaduna nool yahay si nadiif ah ugu dhex nool aanu naqeen anigu 80 baan jiraa wax badan baan arki jiray nin muslima oo ilaahay yaqaan oo aan dhibaato lahayn oo maslaxada ka shaqeeya oo islaama oo ilaahay u gacan buu ahaa taariikhdiisu sidaa weeye ilaahay naxariista ha geeyo ilaahay jannadiisa ha ka waraabiyo waxa weeyaan wuxuu ahaa muxuu ahayto dadka maantayto mujtamaca macnaha aynu ka dhalanay aad iyo aad ka ugu yar buu ahaa ilaahay qadartiisa lagama xumaado waa dambi waa ka xumahay laakiin geerina hadin leh baan ugu timidana reer Mudug. Suldaan Cabdulle Warsame Awdoon wuxuu ahaa nin soo jireena sida aan maqlay 1911 Burcad iyo Buurmadow ku dhashay intii ka dambeysay intuu qaan gaaray waa shaqeynay waxaan isleeyahay hadii la fasiro kelmadda leeyahay sharaf gobonnimo hadii leeyahay mu'min hadii leeyahay waxaan la soo shaqeeyay ismadii hore oo dhan Islaan Cabdulle iyo Islaan Faarax iyo dhammaan in soo gaaray buu ahaa abina nin taariikh leh buu ahaa. Suldaan Cabdulle waxa uu ka mid ahaa 4 qof ee shahaadada wadaniga la gudoonsiyay xilligii wadankeena Soomaaliya uu qaatay xorriyadiisa. Suldaan Awdoon sidoo kale waxa lagu xasuustaa inuu ahaa ruux aad u jecel nabadda iyo midnimada Soomaaliya waxaana bulshada uu mar walba ku dhiirigelin jiray muhiimadda ay leedahay wadaniyadda iyo dal jacaylka. Abaadir Cabdulqaadir Cilmi Kalsan TV Gaalkacyo.